Madam President, national elections in Somalia are now more than 1 year behind the constitutionally prescribed schedule. Since I last briefed this Council 3 months ago, however, waxa uu James Iswaan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhamaatay muddaxileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha tan iyo warbixinteedii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii aqalka sare iyo qayb kamid ah golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyay kulankii bishii Janaayo dhexmaray golaha wada tashiga qaran guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo laba la soo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda 130 kamid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 60 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhamaystirka doorashada golaha shacabka sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen in la hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 22% ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 30%. waxa kale oo uu ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay in kastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan haddana in la xakameeyay ay taasina keentay in doorashada ay soo jiitanto waxa kale oo intaasi uu raaciyeen qaramada midoobay ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toos oo dhinacyada dhexmara waxaana iyadoo si toos ah ula xiriiraysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wada hadal wax walba lagu xalliyo dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda al-shabaab ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu sheegay in qatar weyn wali al-shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasi kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda al-shabaab in ay guula gaaraan dhawaanahanba ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin isla markaana banaadir iyo koonfur galbeed ay wali bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaanahanba Hirshabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiye iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay wali ka jiraan dhinaca kale waxa uu xusay in wada hadallo ay maalmahan ba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso isagoo xusay in midowga Afrika iyo dawladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeq bixiyayaasha qaar in dhawaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani'aadanimo ee ka jirta Soomaaliya oo uu sheegay in ku dhawaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani'aadanimo sanadkan 2022 waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay wadanka ugu horeeya ee abaarahani ay sida baan u taabteen geeska Afrika wuxuuna sheegay in ka badan 4 milyan oo qof ay xaaladda abaartu ay si toos ah u taabatay halka 270,000 oo qofna ay u barakaceen abaarahan waxa uu rajo xumo ka muujiyay gaarsiinta gargaarka dadka u baahan oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200%. Iswaan waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil in xaaladda abaartu ay ka sii dari doonto waxa kale oo ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhalinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobay ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed amni iyo bani'aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan haddana wali in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro. Security and humanitarian conditions in Somalia are still fragile. I remain guardedly hopeful that the country will make further progress in these areas in the coming months and beyond. This requires Somali leaders to put their differences aside for the good of the Somali people and to conclude credible elections as soon as possible. This overdue step will then allow leaders to refocus their efforts on the full range of urgent national priorities. To this end, the international community continues to accompany the Somali people on this journey by providing the necessary support. Thank you, Madam President.